السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلتونا سلامتي داود يا أمريكا ساتشوكتان كل سلوات برنامج كيني دعوين كادوكا وعدها نقلات كلا صوتان تلفزيون كعالمي جه هون كيبل تي في برنامج كينن على بوحن كسو قادنا دعوين كلا دون دنيا دعالة ذا كدعة هذه نقطة لنا عاسي دنيا الإسلام كا إيو دعوين كلا قيب قلوا وقن السركوركا هذا برنامج كينني وحكوس أبسناد ونا دعوة الله يابله وكدعة دولكا يدقان صوماليدو barnaamijkeenan waxa ku saabsanaan doonaa macluumaad kala duwan oo xambaarsan in lagu cibro qaato mucjisooyinka rabbaaniga oo dhamaantood ku tusinaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala awoodda uu leeyahay weliga haddaba intaad xanuunsatay oo kooma aad gashay dhakhaatiirtu ma xaqiijiyeen qalinka ma ku duugay inaad dhimatay kadibna eheladiina iyo dadkiina inta ay qaateen madaraqadii ma la isu diyaariyay in lagu aaso daawaday haddii aanay dhacdadaas ugu dhicin تلفزيون عالمي هون كيبل تي في استوديو مقالة هرقيسة وحي نوغو مرتيا نندل يرى أو عهوشا يدعي قبصتي المقعقة وحالي الله إبراهيم فارح سامع المقع دير أو كم مقع دير موجودة واي هاي إبراهيم أمام موجودة هدي عن كوي راهضو waxaa jirta sheeko xaggaaga iga soo gaadhay oo la ii sheegay in badan intaad xanuunsatay kooma aad gashay koomadii aad ku dheeraatay إلهي قلد ويوادق ما تنور وما دي أنت كتشرتي أيا اللي ودنتي كدب الذي يددكيني وحي بلابن سيدي أيوكا قيب قاعد الله آسكاغا دد ملف فوكيني يدد شوقيبا قوبتي لغو الشيغين أبدبطي هذا الشيء كذا يدا مرنبا موحبها كتشرا سيدي سود عضي وهذا واحد شرا حلقي قحوتيدا 1988 مركي دلكا لغا قحي وحا دعي ددكي waxay galeen xiriir qaxooti oo ka tirsan dalka Itoobiya halkaas waxa ka dilaacay cudurro fara badan oo ka mid yahay kareeco dhinaca hawdka dhinaca galbeedkana waxa dadkii aad u laayay muxuu cudurka la yiraahdo typhoidka iyo jaundice marka aniga hadaan ka wada horta xaaladda markii saddex cudur booy ku dhacay saddex cudur kaneecada markii hore soo riday وكا كعينه هو جوجا إذا ضد العدوان تجي تورس بايدي وكا هترا أنا كيه وكا كعين ها واللي بعطيه كيه هاي سنة كده كم موضوع هذا لا هذه يقول واحد وقتي ده بخدتكو أي بركعان كعان بالكودا يعني بالفوق يتجاه وحياة بالله بس بدليو شغوي متريان نقال متريو بس كبركا وحصامين كل الله يعذره ظروف كالس حقي عفمات حرس قلية كي عادمات كهاليس كلي واحد عذر تيبور كلا وح كل شيء هذيك تصير وسخضة وسخضة يو درحمة مركا عذر تيبور كلا مركا برسدحاتي يقول عاي لذاتنا وعن قلي كوم هذي كان كوم قلي واحد شوي بيل عروسة أيام كتوي ميوزك بعضي لذاتنا عذر كاستابيس وحكم الله سيدو عليا سامي يقول يصير ده أركي وقال قلي جريس أيادي يلا أيان قلي لذاتنا بيل عروسة كم بيضا بنان كابا عول ليري أبولي ركلا اللي يقولوا يشريني مركا هكاهد مدول عضباه دول عضباه مركا waxa dhacday sida markan awdu saxday oo rawaxay koobay baa galay bas inta wixii ka dambeeyay waxa noqonaysaa in lagu sheego qaabkii aad noqotay iyo sidaas u bedeshay maadaama wacyi aad miir baashaado sidii la sheegay iyo sida uu koobada aan ku arkay markan koobada ku jiray waxyaabaha aan arkay ayaa ku bilaabay markii ugu horeysay koobada waxaan ku jiray 15 casho والراح صوب حضي يقبل دعي يعيد يشوفه مثل ما وينه صحراء كاريرة وحاصل ولا يقالي أنت بيشري ليش يقول سريج أفقع عنه لا يسود أنا هذا قادري مركا وحيابي كوبلا عن كواركي تسوي واحد إسرائيل مركا يدوس هناين أستعمل كوبلا دراسة قفو وصلنا يا حركات يا بصلاه وتوحل الدريمي ان قفكم كومو كجيرو oo ka baxaya khadka marka aan la fiir wax ku maqlaafiyeen koomada ku jirto waxa kamida waxyaabii la tusay gabadh imeero la laada koomada goosanaysa hilibkiisa cunaysa waxa kala arkay dad salaad ويشو مساجد
aan kala qayb galay salaadii la tukaday waxa kaloo aan qayb mucjisadaan arkay kamid ahaa dadku ila qaxootiga joogeen ina way dagaalamay ila dagaalku jiray waxa weeye waqtiyadii lagu jiray dagaalkii dawladii maxamed Sare way ama koobi ku jira ayaan isna tawimi kala qayb qaatay dagaalkii baan galay xabadii ba bilaasi oo dadka qaar waxay yiraahdaan waxa uu ninka isagoo koobi ku jira dagaal ku jiray way hada dagaal toos ah angel uu garanay dagaaladii qoobihii uu ku tagay madaba koomada ku jirtay koomada ku jiray way waxa kaloo aan arkay hageesanimi anu koomada ku yimi hada dadku waxay arkayaan in xaalad ugu jiro oo laftooda mesela tagayaan nin tagayba ula mid tahay koomadii yeelay alla dawaaf ku maqato taasina waa awood ilaahay mucjisooyinka rabbaaniga waxaan markaa barnaamijkan aynu dawlada ugu sheegayna in daweeye uu yahay ilaahay waa ilaahay waa ibrahim kaayra dhex galo kulli waxa ku jirta safarkii koomadaada wali waxay noo hadhay qisadan diideen sidee dhaqaatiirtu u xaqiijiyeen ama ay u ansixiyeen in aad qof dhintay markii koomada ku jirtay 15 cisho aad riyada ku aragtay meelo fara badan ugu dambeyntii xanuunkaagii dhaqaatiirtii maxay ku soo afjareen horta warkan ku jiray waxa taandhaweyn waxa yaalay 60 qof oo iyagu xanuunsanayay oo tayfoorkaas u wada lixda ka xaaladoodu markaa ma xaaladiin oo kale ahayd miye ka liidatay ma sidee markaa lixda ka kale adigu aad ku jirtay waxa dadka ay sheegay anigu leeyahay kuwa la igu keenay markaa lixda qof aniga ninka oo imkaarkiisa jooga ayaa ugu haleysnaa labadeedii ugu haleysnaa waa kacday ayaa kacay toodii bay noqotay intii kale toodii bay noqotay waxa kaloo inta koobay ku jira waxa la sheegay nin sariir xagaas oo kale hortayda iga baagnay oo xanuunsanay isna oo ay ka sii baaxisay ama koobadii ku jiro xaalad baaxo ku jira inaan soo kaco soo saro fariistay dadkii waxa la yiri waxa ku tiri وأنا كانوا روحي إسكتها كانوا دمنا إسكتها وخلاص كدلوينه لا إذا كوش قالوا أدو نفس قاضي كد مركع تصفر يستطيع اعتريني كانوا دمنا يا ما سيدا سيكون عارف ما دام يسكومين يدي بيقول أنا مركع اسمه وجبتي وإحنا ما أركيه وإحنا ما بمقليه بدك جوبتشو قال شيء كد محل كوير هذا محل خبيث هل هذا تنقط هذا كوميدي ما تنقط يا waayahay koobadii 15 cisho kadib markii aad ku jirtay dawa la garan karayaa qof 15 cisho kuma ku jira dhibaatada ay leedahay laakiin sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa awood iska leh ahadiistana waa la sheegay Ilaahay quraanka uu nagu sheegay dhitaan qabriga inay ku noolaan marka dadka qaar waxay isweydiinayaan oranayaan tolo qabriga xagee uu qofku ka neefsanaya waa good waxa arki karaysaa qof dhan oo kooma ku jira oo aan dhaqdhaqaaq sameeyay hadana Ilaahay noloshii siiyay waxayna ka mid tahay astaamaha Ilaahay ee lagu talagalay in lagu cibro qaato way dhaqaatiirtii marka maxay yiraahdeen horta biga waxa la soo qaxootiyado xaalad waxa iska karaas burburo dhibaato mid raadada inaan lahayn weyn joogno dhaqaatiirta dhaqaatiir weeyo marka meesha joogno way jirin marka waa isdhaafiyo baa marka waxa la sheegay anigu de wax uma weyn waxa la sheegay maalintii xaaladu ay ugu xumayd ee la islaamay uu dhintay إن ذلك قارلة يعين من درقيه marka dhaqaatiirtu maxay sheegeen tusaalhaan wadnaha dhaqdhaqaaqay buu joojiyay jirkaagii qabow buu noqday macnaha asbaabihii qofku markuu lagu yaqaano ayaa la sheegay dabta dhakhtarkii wuxuu saxay inaad tahay meed dadkiina wuxuu ku yiri qaato ordo aasa saasa lagu yiri way dabta eheladaadii iyo asxaabtaadii iyo dadkii marka joogay ee marka islaamihu yaaba ilaa joogtay marka way برنامج بلود عن قوسي أنا وباهنتي سيق يلو خلط أي وحيالان مثلا أوروبا يكون تبترح إلا لا كفروا لا عصو مناسبة هاي وحال الإسلام قال معناها الإسلام ودخترك يراهدين الميت كي نقاط نكر markuu ninkii Itoobiyaanka ku yiri islaantii uu dhintay ay odayaashii iyo dadkii yaa sida lagu yaqaan waxa la damacay in la diyaariyo xabaashi iyada xabaashi lagu maqan yahay ayaa Ilaahay naftii kugu soo celiyay
islamarkii oo iska soo kacay ما شاء الله marka dadkii dareenkoodu sidoo ahaa waar ku marnaa laba qof laba qof oo marka albaabka taagna way carareen waxaan la cararinba marka hooyo ma kula joogtay marka hooyo joogtay iyadoo marka ma carareen way yaabtay marka dhinacna farxad dhinacna ha saanto ilmaha Soomaal arko ay ma soo kac satir hooyo maxaa dhacay way yaabtay moogti marka dadku marka waxay u arkayeen markay ku arkeen waa nid dhito soo noolaaday mid ahaayo marka dadkii xabalaha ku sii soo waa loo sheegay marka sidii uu barnaamijka lixii u qoray qaabkii ayaa qadalada marka dadkii iyagoo xabash ku socda ayaa loo sheego la yiri ninkii mawjada ahaa uu soo kaco dib ayuu soo noolaaday taas waxa ku tusinaysaa dhibaatooyinka faraha badan leh ee waqtiga dhici jiray diinta islaamku waxa lagu cadeeyay qofku marka uu dhinto waxa loo baahan yahay hubsiimo marka waxa dhici karta waqtiyadaas inay madal xaaladad ku sugnay ka hubsiimo la'aan waxa dhici jirtay waxa suuragal in dadku markaa soo kala qaar noqdaan la iska soo marka dadku waxa fiican oo in la hubiyo oo waqti loo daayo inkastoo astaamaha meedka caadi markay qofka ka baxdo uu la garanayo astaamuhu leeyahay iyadoo astaamihu qofkii leeyahay oo yeeshay ayaa bi qudratillah ama anigu si la sheegay tawaan yeeshay astaamaha dhimashada kale waayahay runtii waxa tahay nin nasiib leh ilaahayna jaalis u siiyay inuu mar labaad noolaado macnaha hadee waxa la inoogu sheegay diinta islaamka hurdadu waa geeriyar qofka bini'aadamka marka uu seexdo ee uu gamco naftiisu way tagtaa ama laba mid bay noqotaa hadii ay tiisi noqotayna ilaahay sidaas uu yiraahdo nafayde isaga joog qofkan waa waqtigiisa saas ku dhintaa hadii aan tiisi noqonina nafti dib baa loogu soo celiyo marka sida noo sheegtay adigu markii xanuunku kugu soo booday ee koomada aad gashay waxaad joogtay goob runtii khayr